soo dhawaada daawadayaal wararka degdegga ee caawaan idin hayno kuwooda ugu xiisaha badan waxaa kamid ah dagaal xoogan ayaa hadda ka soconaya buurta gaadiid caraale oo 5 kiiloomitir u jirto Dambal ciidamada beesha Ciise oo ay jibiyeen ciidanka Soomaaliland iyo Samaroon oo halkaas isku aruursanay dagaal aan waxba la isku reeban ayaa saacadii u dambeeyay halkaas ka soconaya waqtigan aan kula hadlay dagaalka si xoogan u soconaya qasaarooyin lixaad leh oo halkaas laga soo warinayo oo loo geystay ciidamada maleeshiyada Samaroon iyo kuwa ciidanka maamulka Soomaaliland sidoo kale qodobada kale ee xiisaha leh caawa halkan ku daawan doontaan haddii baraale laga helo waxa kamid ah ciidamo hor leh oo ay markaas tababar u soo xireen maamulka waqooyi bari iyagoona isdhiskii ugu dambeeyay ay wadaan oo ay doonayaan in weerar kasto iyo waliba sidoo kale weerar kasto oo ka yimaada dhanka Soomaaliland sidii ay caabin lahaayeen iyana waan ku hayaa faahfaahinta xogtaasi tiri intee leeg ayaa ciidamadan tababarka loo soo xiray faahfaahinta xogta ayaad ku daawan doontaa sidoo kale waxaad halkan ku daawan doontaan ugaaska ugu sareeya ee beesha Ciise ugaas Mustafa Ibrahim ayaa xaqiijiyay in ay jibiyeen maamulka Soomaaliland ciidamadiisa iyo maleeshiyada Samaroon oo dagaalkan ka barbar dagaalamaya qoraal uu kooban uu soo dhigay ayuu markaa ku sheegay in guul weyn ay ka gaareen ciidamada maleeshiyadka Samaroon iyo waliba sidoo kale kuwa maamulka Soomaaliland qodobadaas iyo kuwa kale oo faahfaahsan oo aan idin qarinayo ayaa saaxiib yaal halkan ku daawan doontaan soo dhawaada anigu waxaan ahay Abdiraxmaan Lisbon halkan aad iga daawanaysaan waa kanalkayga Macaash Media haddii aad markuu ugu horreysay fadlan kanalka rukumo oo subscribe dheh muuqaalkan aad daawanaysiin la garay siin share garay oo saaxiibadaada la wadaag mahadsanid daawade hagaag aynu ku bilaawno sida aad ka warqabtaan ba wararka degdegga ayaan maalin walba halkan idin kula wadaagnaa warar degdega oo saaxiib yaal hadda aan idin la hadlayo waqtigan waxa dagaal xoogan oo u dhaxeeyo ciidamada Samaroon iyo waliba sidoo kale kuwa maamulka Soomaaliland oo garab ay ka helayaan iyo ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa hadda markaas isku farsaaraya magaalada Dambal oo ah meel ay si weyn ay maalmihii dambe ay ciidamada kuwa maleeshiyada beelaha Samaroon ay u soo markaas hunguriyeen ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ayaa halkaas ku sugnaa 12 bilood ee u dambeeyay iyaga ayaa gacan ku heynta magaaladaasi ay gacanta ku hayaan waa magaalo runtii aad u diyaarsan marka loo fiiriyo iyadoona ay maaragtay magaalo istiraatiiji ah oo ay ciidamada geesiyaasha beesha Ciise ay ku fadhiyaan ayay qayb ka tahay waliba guuloodii ay gaareen meelii ugu waaweynaa ay qabsadeen ayay qaybta ka ahayd halka la yiraahdo meesha loo yaqaano Dambal oo ah kuwa ay ku sugan yihiin ciidamada maamulka beesha Ciise anraade ciidamada beesha Ciise ayaana markaas jab xoogan waxay u geysteen ciidamada kuwa maamulka Soomaaliland iyo waliba Samaroon oo isku dhinac ah jab xooganna ay halkaas ku gaarsiiyeen wararka faahfaahsan haddii aan fiiriyana dagaal culus ayaa saaxiib yaal hadda ka socda deegaanka buurta gaadiid caraale oo qiyaastii 5 kiiloomitir u jirto Dambal halkaasi oo ay isku farasaarayaan ciidamada beesha Ciise iyo waliba sidoo kale kuwa maamulka Soomaaliland iyo Samaroon oo halkaasi looga adkaaday wararka laga helayo goobta dagaalka ayaana sheegayaan in ciidamada beesha Ciise ay jibiyeen ciidanka ka soo markaasi horjeeda isla markaasna ay markaasi ay la wareegeen fariisimo muhiim oo ahaa oo ay doonayeen in ay la wareegeen ku dhawaad 12 askari oo ka tirsanaa maamulka Soomaaliland iyo 6 askari oo ka tirsan dhanka Samaroon ayaa hadda la soo warinaya qasaaraha ugu waaweyn ee la gaarsiiyay kuwa maleeshiyada ee duulaanka soo qaaday ciidamada beesha Ciise ayaana markaasi buuraha dhakadooda ay ugu diyaarsan yihiin qof kasto iyo waliba sidoo kale cid kasto isku dayda inay magaalada soo weerarto ay halkaas ugu hortagayeen xaaladda ayaa hadda naqanaysa mid cabsi badan ay ku abuurtay tan iyo dagaalkii caawa halkaas ka socdaba waxay dadku ay hadda dareemayaan cabsi xoog badan dadka qaar oo halkaas ku sugnaa oo aan rabnay inaan xogo dheeraad aan ka weydiino ayaa inoo saamixi waayay qadka taleefanka ah balse laakiin wararkii ugu dambeeyay ayaa waxay ahaayeen in ciidamada beesha Ciise ay guul ay ka gaareen kuwa maamulka Soomaaliland jab xoogan loo gaarsiiyay askar ka tirsaneed kuwa Samaroon oo maleeshiyada iyo kuwa maamulka Soomaaliland ba qaybtood in laga laayay oo ay meedadkoodii ay kala goranayaan xaaladdu caawa ma sahlano oo waxay dadka deegaankan ama magaaladan aan hore loogu barnin in arbushaad iyo dagaalba caawa saansaan dagaaleed ay ku seexanayaan inkastoo gudaha magaalada aan la isku farsaarin
barnaanka ka hortag ay sameeyeen ciidamada geesiyaasha beesha ciise nafurnimona markaa ay sameeyeen waxay hadda xaaladdu ay taagan tahay in weli laisku hor taagan yahay oo faanole fara ka maqadna ay taagan tahay oo beesha ciise ay doonayso inay sii xajistaan halka Samaroonku iyo maamulka Somalilandba ay doonayaan in magaalada ay gudaha u galaan iska caabin xooganna ay kala kulmeen wixii wararkaasi soo kordhana barnaamijyadeena dambe ayaa saaxiibayaal ku daawan doontaan qodobka keena xiga ee haddii aan fiiriyana waxaa soo ifbaxaya ku dhawaad maamulka waqooyi bari ayaa 12 oo askari ah waxay u soo xireen tababar aad u sareeyo ciidamada maamulka waqooyi bari ayaa maalmihii dambe waxa ay ku jireen dhisidda xuduud ciidan iyo weliba sidoo kale ciidamo istiraatiiji ah oo leh maamulka waqooyi bari madaxweynaha maamulka waqooyi bari Cabdulqaadir Firdhiye oo hore u sheegayba in ay marka hore dhisi doonaan amniga magaalada iyo weliba sidoo kale adkeynteeda ayuuna markaasi sheegay in dhawaan askartan tababarka loo soo xiri doono oo ay maamulka waqooyi bari ay u noqon doonaan kuwa wax badan ka faa'iida maxaa yeelay ciidamadan waxay qayb lixaad ka qaadan doonaan gulufka dagaaleed oo ay maamulka waqooyi bari u soo galaan sidii maamulka go'ay waqooyi waa markaasi Somaliland ay u naqan lahaayeen tani waxa ay noqotay mid markaasi mirdhala oo guul ay gaareen hamigoodan oo ahaa inay ka go'aan haddana dawladda dhexe ay u aqoonsatay maamulka waqooyi bari ku dhawaad 500 askari oo ciidan ayaa tababar loo soo xiray sidii ay xuduudaha maamulka waqooyi bari iyo weliba sidoo kale amniga magaalada ay u sugi lahaayeen maamulka Somaliland ayaa maalmihii dambe ay bilaabeenba inay dhaqdhaqaaqyo xoogan ay ka sameeyaan dhanka maamulka waqooyi barina waxa uu markaasi uu sameystay ciidamo u gaar ah oo markaasi daraawiisha oo ay markaasi ka amar qaataan maamulka ee halkaasi ka jiro iyadoona hadda xaaladdu sida ay u muuqato ay tahay mid aanan markaasi dhowrkii maalmood u dambeeyay aysan wanaagsaneyn oo ay maamulka waqooyi bariba ay durbo markaasi ay bilaabeen in xuduud ciidan ay soo saartaan amniga magaaladooda ay sugaan xaaladaas ayay marayaan iyagoona ay foojigan yihiin ay doonayaan in cid kasto iyo weliba sidoo kale marxalad kastaba ay ku samraan xaaladaha kala duwan dhanka kale maamulka waqooyi bari ayaa soo bandhigay ciidamo hor leh oo dhawaan markaasi ay u qalanjibiyeen kuwaas oo qayb ka markaasi ah qorshaha muddooyinkii dambe socday waxaana lagu dhisay ciidamo awood leh oo ay doonayaan in ciidamada beesha ciise ay noqdaan waa aan raade ciidamada kuwa maamulka waqooyi bari ay noqdaan kuwa awood leh oo iska dhicin kara maamulka Somaliland hore ayay u ahayd gooja cadde ciidamo tiro badan oo halkaasi ku geeriyooday iyo kuwa kale oo naftooda u huray ayaa sidoo kale dagaalka qayb ka ahaa oo ay ku guuleysteen ugu dambeynna gooja cadde ay la wareegeen ciidamada madaniga ah ee markaasi waqooyi bari oo ay hadda nabad iyo markaasi caano ay ku naalo ay markaasi ku naawilayaan kuna noolaanayaan balse xaaladaas ayaana hadda noqonaysa mid aysan ka soo kabsan doonin maamulka Somaliland maamulka waqooyi barina dhan walba ayuu iska dhisay ciidamo xuduud leh ayuuna markaan soo saartay qodobkeena ugu dambeeya daawadayaal haddii aan fiiriyana ugaaska ugu sareeyay ee ugaaska beesha ciise ugaas Mustafa Ibrahim ayaa sheegay in guul weyn caawa ay ka gaareen ciidamada geesiyaasha beesha ciise kuwa duulaanka soo qaaday ee maamulka Somaliland iyo kuwa Samaroon oo isku dhinac ah ugaaska beesha ciise ayaa bartiisa Facebook uu soo dhigay qoraal kooban waxa uu sheegay in laga adkaaday cadowgii iyo weliba sidoo kale kuwii markaasi waa markaasi kuwa la soo kireystay waxa uu sheegay inay ka taqaluseen oo ay caawa ay markaasi ay tahay buurta waa markaasi gaadiid caraale oo 5 kilomitir u jirto magaalada Dambal ay caawa tahay mid safe ah oo ciidamada geesiyaasha beesha ciise ay ku sugan yihiin oo ay xaaladuna ay tahay mid degan dhan walbana looga adkaaday maleeshiyada duulaanka qaaban ee ku soo qaaday ciidamada geesiyaasha beesha ciise xaaladda noocan oo kale ayaa maalmihii u dambeeyay waxa ay ka jireen qaybo kamid ah gobolka Awdal iyo Salil xilli ugaaska beesha ciise uu sheegay in tani ay tahay guul weyn oo ay caawa mar kale ay gaareen ugaaska ayaana gabi ahaanba ku dhawaaqay inay ka guuleysteen aan fiirino marka ugaaska beesha ciise ayaana markaasi si cad u sheegay in ay guul ka gaareen dagaalka isla markaasna ay jabiyeen waa markaasi jab xoogan ay gaarsiiyeen ciidamada maamulka Somaliland iyo kuwa la safan Samaroon waxaa sidoo kale jira dhaqdhaqaaqyo ciidan oo ay sii xoogeysanayaan iyadoona warar dheeraad ah oo ay tilmaamayaan in labada dhinacba
ay wadaan isku markaasi hub aruursiga ugu dambeeyey ciidamo iyo weliba sidoo kale diyaargarow adag ay halkaasi ka sameynayaan dadka deegaanka ayaa cabsi badan ka muujinaya walaac iyo weliba sidoo kale dagaalkan uu sii xoogeysan karaa xaaladda ayaa weli mid aad u kacsan waxaana markaasi laga cabsi qabaa in dagaalkan uu sii fido haddii aanan xal degdega laga gaarin faahfaahinada dheeraadka ah iyo weliba sidoo kale xogaha halkaasi ka helayna ayaa ah mid markaasi tilmaamayaan in haddu libiintu ay ku sareeyaan ciidamada geesiyaasha ee beesha ciise oo ay halkaasina ay tahay goob ay si weyn iyagu ay ugu xoogeysteen daawadayaal wixii warar halkaasi kasoo kordhana muuqaalada dambe ee barnaamijyadeena dambe ayaad ku daawan doontaan haddii aad halkan nala soo gaarteen daawada waxaa tahay qof walba wanaagsan waxaan si naxariis leh kaaga codsanaya inaad kanalkan soo subscribe garaysid oo muuqaalkan la garay siin share garay saaxiibadaada la wadaag oo ku mahadsantihiin daawashada muuqaalkan mahadsanidin